عليكم halkani waa Grand Online Academy magacaygu waa Dr. Maxamed waxaan doctor ka bixiya maadada pharmacology-ga ama barashada daawooyinka ee Grand Online Academy maanta waxaynu ka hadli doonaa lipid lowering drugs daawooyinka yareeya ama hoos u dhiga marka subagu uu ku farabato dhiiga intaynu daawooyinkan bilaabin waxaan doonayaa inaad wargeliyo ama intaynu casharkeena bilaabin inaanu bilownay fasalo cusub oo pharmacology ama barashada daawooyinka qaab online ah adigoo gurigaaga jooga marka maanta waxaynu ka hadlaynaa daawooyin aad muhiim ah oo ah lipid lowering drugs ama drugs for hyperlipidemia daawooyinka lagu daaweeyo marka uu subaga dhiigu farabato lipid baynu horta qeexaynaa ama subaga maxaa laga wadaa subaga aynu cuntada ka helnaa waa saddex nooc waa triacylglycerol mid la yiraahdo iyo phospholipids iyo cholesterol marka cholesterol ayaa aad iyadu u sii muhiim ah cholesterol hadaba waa maxay cholesterol waxa weeye waa subag nooc kamid ah subaga waxaana lagu sameeyaa dhammaan unugyada jidhkeena oo dhan ayaaba lagu sameeyaa marka hadii dhiigii ku farabadato waxay keenaysaa in xididadii dhiigga ay yaryarayso oo marka xididadii wadnaha dhiigga siinayay intay aad u yaryaraadaan marka wadnihii dhiig fiican heli waayo taas marka hadhow keeni doonta inuu wadnihii marka shaqada uu istaago ama shaqadiisa uu khalkhal ku yimaado marka cholesterol waxa transport gareeya oo qaada maadaama ay subag tahay aad weyn waxa qaada protein loo yaqaano lipoproteins waa protein iyo lipid ama subag isku jira kuwaas qaada lipoproteins marka waa dhowr nooc waynu arki doonaa very low density lipoproteins baa qaar la yiraahdaa waxa kale oo jira low density lipoproteins oo sidoo kale loo yaqaano LDL ama bad lipid subaga xun marka waa ka xididada xidhaya iyo high density lipoproteins oo sidoo kale loo yaqaano good lipid subaga wanaagsan waynu arki doonaa sababta wanaagga loogu sheegayna marka LDL ka nooca loo yaqaano low density lipoproteins ama bad lipid maxay magacan baadhka ku qaadatay sababtu waxa weeye cholesterol beerka ku jirtay ayay ka qaadaysaa beerkii oo dhiiga ayaabay ku soo shubaysaa marka dhiigay keenaysaa haddii marka cholesterol farabadan dhiiga keentana waata dhibaatada keenaysa hadhow xididadii yareeraaya wadnaha iyo kuwii maskaxda labadaba marka dhibaatada u geysanaysa ay xidhaysaa HDL ka ama high density lipoproteins ka ama good lipid ku wanaagga lagu sheegaya waxa weeye iyadu waxay samaysaa cholesterol dhiiga ku jirtay ayaabay ka soo qaadaya beerka ayay ku soo xareysaa marka maxay hoos u dhigaysaa cholesterol dhiiga ku jirtay ayaabay hoos u dhigaysaa marka sidaa awgeed ayaa u noqotay marka bad and the good lipid ama high density lipoproteins dawooyinka lagu daaweeyo markuu subaga dhiigu farabato way noocyo badan yihiin waa classes aad u farabadan ilaa 5 class weey ama 5 nooc laakiin waxaan maanta qaadan doonaa kuwa ugu muhiimsan oo ah statins ka dawooyinka la yiraahdaa waana drugs of choice waa dawooyinka koobaad ama dawooyinka ugu fiican ee loo isticmaalo marka uu subagu dhiiga ku farabato qof kasta oo subaga dhiigiisa uu ka xasan yahay waxa kamid ah dawooyinkan magacyadooda simvastatin atorvastatin iyo rosuvastatin statins marka dhamaantood statin baa wada dambaysa dawooyinkani sidee u shaqeeyaan how do they work say u shaqeeyaan dawooyinkan waxay xanibaan enzymka la yiraahdo HMG CoA reductase muxuu qabanayaa enzymkani cholesterol marka la sameeyo cholesterol process dheer bay martaa pathway aad u dheer marka la sameeyo cholesterol wadooyinka marka la sameeyo ay ka soo baxayso ayaabuu enzymkani shaqo weyn ka qabtaa oo wuxuu ka qayb qaataa in la sameeyo cholesterol marka enzymkii cholesterolka sameyn lahaa la xanibo cholesterol la sameyn maayo hadii cholesterol la sameyn waayna cholesterol dhiiga ku jirtana way yaraanaysaa saameyntii iyo dhibaatada ay geysan lahaydna hoos bay u dhacaysaa marka enzymkani dawooyinkana xanibaan oo la yiraahdo HMG CoA reductase sidee maxay dhibaato dawooyinkani leeyihiin ama side effects markuu qofku dawooyinkan qaato waxa ugu commonsan myopathy muruq xanuun muruqyada qofka xanuuna tabcaan fara badan oo yeesho
iyo mararka qaarkood inay burbur ku keenaan muruqa skeletal muscle-ka oo loo yaqaano rhabdomyolysis. Rhabdomyolysis waa burbur ku yimaada skeletal muscle-ka. Rhabdo waa skeletal muscle, myona waa muscle-kii. Contraindications yaa laga ilaalinayaa dawooyinkan gabadha dumarka uurka leh iyo kuwa markaa naas nuujinaya labadaba lama siinayo. marka halka waxay noogu dhan dawooyinka lagu daaweeyo marka uu lipidka ama subaga dhiigu uu farabato. Sababta subaga loo yareeyo waa inaga soo sheegnay waxay keenayaan marka in xididada yaryar ee wadnaha iyo maskaxda ay marka xidhmaan oo ay keento marka ischemia. marka halkaas ayaaba inoogu joogaya maanta. ha moogaanin inaad la wadaagtid ehelkaaga iyo asxaabtaada si ay u gaadho marka dad fara badan oo xiiseynaya. dawooyinkan intan kuma eka laakiin iyagoo dhammaystiran waxaad ku baran doontaa klaaska dhexdiisa. soo dhawow, halkani waa Grand Online Academy. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.